يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. حنومهاد نقيا dadkii inay xafladani qabsoonto ilaahay sabab inooga dhigay ayaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. waxa kale oo mahadnaqayaa gudoomiyaha mu'assasatu tawciya Sheekh Saad iyo dhammaan xubnaha kale ee la shaqeeyay. gudoomiyaha sheega doona iskuulada qaar baynu ka helnay scholarship inahaas waa dadaalada ay ugu jirto mu'assasatu tawciya islaamiya ardayda dhigata dugsiyada kuwa sare iyo kuwa hoosaba. marka inaynu isugu nimaadno khayr kale oo kala dhalinyaro hableynamaba oo ilaahay dartii aad maxaan ku leeyahay isu u walaalowdaan dacwada u fidisaan dhalinyarta kale aad ugu yeedhaan kitaabka Allah sunnah nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waayo markay bartaan maskaxda koraysa aqliga u ballaaranaya qofka noqdo qof maartay mar walba daahir oo weysaysanaya mar walba maxad quraan afka ku haya quraanka ilaahay akhrisanaya ilaahay qalbigiisa iyo nuur buu gelinaya maskaxdiisuna way ballaaranaysaa. marka camalka dacwiga ay isugu nimi ay isu kalmaysanayna waliba idinkuna u da'yartihiin oo waqtigiina u haysaan waqti badan oo u haysaan waxaan idinka rajaynayaa inaad dacwadaas aad maartay iswada garab istaagtaan oo isku caawisaan isku kalmaysataan wixii wax la tari karayana aan isla garabkiin taagno haddii hadal tahay haddii dacwo tahay haddii tahay maartay sharci iyo nidaam la idin fududeeyo intaan diyaar baan xukuumad ahaan lanahay inaan maartay dacwadaad kala qayb galo wasaaradda waxbarashaduna aan ka wakiila oo ay hay'ad ay soo raacaan laakiin ay ka mashquuleen waxaan oranayaa iyagana salaam baa idinka sidaa wasaaradda waxbarashada inaan idin habayno wax la wixii baataan aan diyaar u nahay ayaan idin sheegaynaa runtii camal fara badan baa soo qabateen kalsooni badan baan ku qabnaa waliba sheekhan Sheekh Saad kalsooni badan baan ku qabnaa dacwadu wado dar ilaahay wado aan shilin ku qaadanin oo runtii uu naftiisa u horay saadugma ugu horteen oo u horeysaan waqtiina qaaliga soo bixiseen. marka macadkaas runtii uu doonayo inuu macad shariicada lagu barto muddo 2 sanadood gudahood qof kasta kaga soo baxo macadkaana insha Allah waa isgarab taagayna imkana waa inoo furay macadkaas sheekh macadkaas waa bilaabi doontaa barakallahu fiik. wasiirka khayr Allah siiyo kelmad waafiyo duca iyo wax walba la soo keen daray macadkiina waa inoo furay wasiirku aad u mahadsan yahay. kulligeen warta dacwad baynu wada sidnaa dacwad ayaynu xambaarnay oo aynu wada sidnaa oo ay tahay in hubkeedii iyo qorshaheedii iyo nidaamkeedii iyo awooddeenu ku xambaari lahayn aynu la nimaadno. taa waxaa ka mid ah barashada diinta islaamka haddii tahay qur'aan haddii tahay xadiis iyo haddii tahay fiqh. saacad waxaynu ku ognahay mu'assasadan inaynu dadaal fara badan ay 20 sano ugu dambeeyay ku soo jireen. aniga saacad macallinkayga buu haayo muddo badan buu soo dhigayo dalkoos ka qarba oo daasad lagu fadhiisto oo kursigan iyo hoolkan iyo aynu maanta quruxda badan aynu joogna aanu jirin ayaa haddana waxbarashadeeda oo macallimiintii kaalinta weyn ka soo qaadatay oo ka mid ahaa. dadaalka waan ku ogeyn waanan ka muuqday intii anigu aan bartay macallinka bay ahaa. haddana waxaynu arkaynaa inuu u taagan yahay marka tiirarka waaweyn ee dalkeena u taagan ee diinta culayska badan iska saaray uu ka mid yahay. mu'assasada macallimiinta hablaha iyo inamada ka faa'iideystay dhammaantoodba iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaa kaloo u mahadnaqayaa wasiirka awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi oo ka soo qayb galay xafladan isagoo ina qiimeynaya haddii aanu nahay waalidka iyo maxaan ku dhahaa odayaasha mu'assasadan waxaanu leenahay tii lagu guulaysto ee muddada ay wax soo waday midho badan oo qiimo leh ayaa ka soo baxay intii ay shaqaynayeen. maanta dadkii mu'assasadaasi ay tawciyada ama wacyigelinta ay ku samaysay ama ay wax gaarsiisay aqoon diimeed caalamka oo dhan bay kala joogaan. maanta waa dad diintoodii iyo dalkoogii iyo dadkoogiiba anfacay. mu'assasaadka iyo macaahidda islaamiga ee sidan oo kaleana waxaan leeyahay ha la sii siyaadiyo waxadka bilaashka ah ee la sheegay ha laga faa'iidaysto 2 sano
هلا قليو جهدي بدن يا مرت شرفتا كسو قيب قشي ugu horeeyo wasiirkeena awqaafta oo mar walba garab taagan muasasada khayrka iyo wanaagana runtii ku suntan iyo dacwadda ku suntan waxa kaloon iyagana u mahadnaqaya shirkadda Telesom oo uu nagala joogo Yaasiin Nuur Mooge runtii Yaasiin oo qudamo ahayn daasada uga soo bilaabay jaajuurka ku fadhiisan jiray 1991kii dabayaqadiisii iskuulkii Puntland la oran jiray kaligiina ma ahay runtii wasiirada qaarkood ayaa xitaa kamid ahaa ragii aan macalinka u ahaa sida wasiirkii dalxiiska Khadar Xaaji oo kale maalin walba dadaan macallin waxba arki jirteen maanta waxa uu soo booqday macalinkaygii luqadda Ingiriisiga ee jiray Sheekh Saad Ilaahay mahadi weeyaan in aan dugsiga Al Jazeera maanta joogo oo wasiirkeenii hore wasiir Khadar wasiirkii dalxiiska ahaa isla markaana maamulihii iyo ninkii dhidbay dugsigan Al Jazeera oo isla markaana ahaan jiray dugsigii aanu aasaasnay 1991kii dabayaqadiisii oo ku yaalay daruuraha xisbiga aanu ka furay oo aanu ku bilownay daasad iyo jaajuur iyo dhagax iyo asaas kuraasibad ku fadhidaan nimcad maanta ku jirtaan raggan waxaanu ugu dhigi jirnay berigi daasad caano boor ka dhamaaday bay soo qaadan jireen si ku fadhiisan jireen waxa kale oo mahadnaqaya suldaankeena Suldaan Abu Salmaan oo aanu sagara saaxiib ahaan jirnay waxa kale oo mahadnaqaya macallimiinta macallin Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud waxa kale oo oranaya macahadkan aynu furnay in laga faa'iideysto arday badan diyaar bay u yihiin waxaan u yeeri doonaa Sheekh Saad oo guddoonsiin doonto Sucaad guddoonsiiyay qaar dhamaysatay حياتكم ودمت خير غارس أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو leeyahay qofka xambaarada islaamka madashan shaacinta nadwa cilmiyeedkan diiniga